ayadoo isbuucan xaalado kala duwan oo aada u adag ay soo wajahday ajaanibta dalka koonfur afrika ku nool karaan gobolka western cape, khaasatan soomaalida oo isbuucani deegaana halisa lagu dilay, qaarkood lagu dhacay, qaarkood dukaamada ay xireen, ayaa dhacdooyinkii ugu dambeeyey waxaa la sheegayaa inay ahaayeen kuwii ka dhacay deegaanka Filibi oo ugu yaraan 2 muwaadin lagu dilay isbuucan gudihiisa. Labada muwaadin ee dukaankooda lagu dilay ayaa waxaa la sheegayaa in meeshaas gabi ahaanba ay tahay meel tuugadu ay kasoo darayso, islamarkaana ay tahay tuuga iska daba imaanaysaba oo la leeyahayba iyagoo is og ayay haddana wax qaadanayaan. Laga yaabaa hal tuug keligiisba inuu iska soo dhigayo 2 tuug ilaa 3 tuug. Mar kale ayaa waxaa la sheegayaa inay deegaanadani kusoo bateen tuugo sheeganayso in ay lacag dheeraad ah rabaan, haddana lacagda la siin wax dilayaan. Waxaa la yaab leh oo muwaadiniintan la sheegaya inay u dhinteen inaanbaba lala hadlinba oo la iska dilaba, si macnaha waxaan ku idhahdaa maxaa iga galay camal leh, taasoo ay ku xaqiijisanayaan lacag oo ayaga ay rabaan in loo tago, islamarkaana yidhaahdaan lacagdaasaan u dilnay dadkaas, lacagdaasna la siiyo. Dabcan allah u naxariisto, muwaadiniintii la dilay waa la aasay, gacanka xaqdaran ayaa dishay. Wiilal dhalinyaro ah oo shaqaysanaya ay ahayn oo dalkan ku noolaa, dabcan inkastoo xilliyada ay ku noolaayeen xilliyada ay soo galeen aan kala aqoon, qaarkood xitaa waalidkood ayaa joogay. Xitaa waxaa ka mid ah sida la ii sheegay wiil walaalkiis asagana saan oo kale 2 sano iyo 3 sano ka hor lagu dilay dalkan. Dabcan waa dareemi kartaa xanuunka leedahay, aabahooda weliba jooga wiilashaasi, wiilkii kalena waa la dilay, dabcan aabihiina waa joogaa. Wararka ugu dambeeya kale waxaa ka mid ah in muwaadin Soomaali isna la dhaawacay oo lagu dhaawacay deegaan kale oo xaafad isku raran ah kadib markay tuugo isxabadayeen, sida wararku ay sheegayaan, islamarkaana markii dambe laga tabaroonaaday sidaasna lagu dhaawacay. wax kale lama sheegin inay dugaan ka dhaceen oo kaliya la sheegay, waxay damacsanayeen kulley waa wax la isweydiinay ma deegaankan Filibi marka kusoo noqonaynaa. Dhacdooyinkii ugu dambeeyay newska dalka koonfur afrika ama warbaahinada dalka koonfur afrika ay tebinayaan ayaa waxaa ah in xildhibaano macnaha heer governmental heer state macnaha xildhibaano ka tirsan xisbiga muxaafadka ee DA. dabcan DA waa xisbi muxaafada, dabcan mucaarad nu isticmaali karno, qayb si fiican weliba dalkan ka haysta wasiirro kule dowladdan isbahaysiga ama xulafaysiga ku jirto, mar ahaan jiray xisbiga ugu weyn ee mucaaradka dalka koonfur afrika, haddana ah xisbiyada ugu waaweyn dalka ee weliba dowladda ku jira muxaafadka, ayaa xildhibaano kuwiisa 3 gaar ay dhaawacyo fudud ay kusoo gaareen deegaanka Filibi maalintii shalay 4 sac ka hor. dabcan waxaa la sheegayaa in ay dad baabuurka loo soo jebiyey oo dhaawacyo la gaarsiiyey, wax la yaab leh ay noqotay, oo xildhibaano weliba gobolkay ka soo jeedeen macnaha western bay ka soo jeedeen. halkaasna waxaa la yidhaha oversight wax la yidhaha u tageen oo indhayntan marka dabcan way noqon kartay in xaaladda guud oo dadku macnaha ay ku nool yihiin inay u tageen, laakiin kolley ayagu waa portfolio waxay ka tirsan yihiin baarlamaanka oo arrimaha security-ka la xiriirto. marka dabcan wararku qaar waxay sheegeen inay arrimo security oo boolis halkaasi taraynin iyo wax uga socdeen ay soo booqanayeen. kolley booqashadoodu uma booqasho deegaan la xiriirtay, laakiin waxaa la yaab noqotay in meesha lagu galay nimankii kalena dabcan waa iska baxsadeen, waa baxsad lama qaban. marka dagaal kadib adigu waa ka badbaadeen nimankaas. marka sida warbixinada lagu sheegayo waxaa la leeyahay waxaa lagu sameyn rabay wax la yidhaha afduub hijack, saasay ku fiicneed, asaa lagu sameyn rabay macnaha ayagii baabuurkooda la isku afduuban rabay. dad iska cadcado waxoogaa maxaan ku idhahdaa nin ka mid a waaba Cameroon la yidhaha, waa shakhsiyaadka ugu codka dheer ugu saameynta badan baarlamaanka dalku ka mid yahay, gaar ahaan marka la yidhaha baarlamaanka hadda jiro oo inta badan dadka waxaa waaye waxyaabaha maxaan ku idhahdaa dowladda ku dhaliilo ay ku qaldan tahay, waxay ku saxan tahayna sheegay. weliba soo muxaafado ninkaas inuu dowladda aada u dhaliilo lagu sheegaa. 2 xildhibaan oo kale ayaa la socday, iyaguna mid gabar ahayd sida la sheegay, marka dhaawacyo badan sooma gaarin. marka dabcan deegaankaas soomaalida ay ku ganacsato waa deegaan noocaasa oo halistiisu ay aada u badan tahay.